Waxaan daawadayaal ku soo dhawaada qaybta labaad musalsalka khiyaano dumar. Qaybtii koowaad ee sheekadan waxay noo joogtay Amaal oo Cabbaas u soo bandhigtay dareenkeeda iyadoo ugu dambeyn ay ku kala tageen ka soo fakar waxaana ay u ballan qaadaysay nolol kale. Maalmo uu fakar ku jiray Cabbaas kadib hadda go'aan ayuu gaaray waxaana uu doonayaa inuu la wadaago Amaal. Telefoonkeedii ayuu wacayaa isagoo ku ballaminaya meel aan xaafadda ahayn. halo rafiicanahay waxa ka rabay maanta inaan kula kulmaan rabaa arintaas waa ka sheekaysananahay horta bal aan kulanno waxa ku wada ma ogtahay aan kulanno okay hay meesha kulanno meesha okay dirjiinkaan oo balan yahay salaam Amaal maanta waxay la ballansan tahay Cabbaas. Labiskeeda waxay ku darsatay inay xitaa qariso wajigeeda waxaana ay xiratay indho shareer. Waxa qalbigeeda ka guuxaya nooca ay noqon doonto jawaabta ay kala kulmayso Cabbaas waana sababta ay u qarinayso wajigeeda. Bal waxa dhaca aan aragno. Hadda waxay ka soo baxday xaafadeeda waxaana ay ku sii socotaa halkii uu ku ballamiyay Cabbaas. Cabbaas isaga xilli hore ayuu meesha sii tegay waxaana wajigiisa ka muuqda caro. Faa'iza iyada warba uma hayso xaalka socda waxaana ay isaga jirtaa jawi iska farxada oo maareynta nolosha reerkeeda ayayba mashquul ku tahay. Hadda waxaa madashii kulanka timi Amaal. Waxa durba iyadoo xitaa aan dhinac fariisan Cabbaas ay bilowday inay hadasho. Hadalkan ay ku tuurtay dabeetana waxa dhex martay sheekada maalmo si qurux badan caadi ah si qurux badnaanaysa maxaa cunto wallahi quruxan oo dambeysay soo fidis waxa u maleynaya inay soo fikirto wadantaada aad soo aqoonsatay wallahi fikrad ma jirtay kulay waxaan danteeda ahna ma jira adi ay wadide maxaa dhacay baaskiisa wallahi ani waxa ku dheelahay kulay ani adi yani dumaashinima hana deeqdo wax kale inuu dhaxmaro uma baahniyo marka ani ahaanteed horta ma iqancin qaab aku qaata ma balahan baad xaaskeyga naadi laba jibaar xitaa ma gaartid maxaa kugu raaca maxaa quruxdeeda ma arkin ani wajigaan foosh xunayga ilaaliyo caadi iska dhig wajigayga ay u furan wajigaaga shirarka qaab darada caadi iska dhig meel u laayahna ma arkin hormaato adig hor ma san jirin marka caadi iska dhig raadkeyga nabadgeli kuma baahni isma naqaan ani adig armaha reerkeyga faraha iga qaato si fiican ma soo fikirto horta waa soo fikiri anoo maskaxdayda joostaan kula hadlaa marka loo kala wada Cabbaas kaale intaas Cabbaas waxa uu goobta kaga dhaqaaqay Amaal oo qalbi jab iyo qaracan dartii hoos eegaysa. Awood uma lahayn ay kor ku soo eegto ama ay xitaa ku eegto Cabbaas oo sii mirqaya. Amaal waxa uu bilowday ciriiri waxaana iyadu ay bilowday inay nafteeda canaanato isla hadasho. Waxa xanuun ku noqday hadalladii adkaa ee Cabbaas uu ku dhahay maanta oo ay ka mid ahaayeen wajiga ayaa duq ka tahay foolxumadii oo socota ayaa tahay iyo hadallo kale oo badan. In Cabbaara oo ay iscanaanatay nafteeduna ay canaanatay kadib hadda waxa ay qaadatay go'aan waxaana ay ku fakartayba inay isqurxiso isla markaana ay isku samayso qalliin lagu qurxinayo wajiga iyo dhammaan xubnaha kale ee jirka. Qarash badan ayaa kaga baxayo qalliinkan waxaana waajib ku ah inay u dhoofto dibadda. Niyadeeda weli Cabbaas ayaa ku dhex jira. Waxa ay doonaysaa inay samayso waddo kasta oo ay ku heli karto Cabbaas. Waxay u baxday dibadda. 3 bil kadib waa tan Amaal oo la moodo gabar cusub. Wow! Haddii lacagtii iyo baasaboorkii shaqayn waayeen markan qurux ayaa lagu soo biiriyay. Maxaa dhici doona? Waxay dib ugu soo laabatay dalka. Maalmo kooban ayay joogtaa. Waxay doonaysaa inay mar kale hor istaagto Cabbaas oo ay dareenkii lagu celiyay mar kale u sheegto iyadoo wajigeeda iyo muuqaalkeeda guudba wax badan ka soo bedeshay. talo maxaa dhici doona
intaa ayaan ku joojinaynaa qaybta labaad ee sheekada khiyaano dumar. waa qiso dhaba oo dhacday oo aan filimkan kaga turjumayno. daawada haddii aad ku cusub tahay sabscribe noo saar, sii sheer garee muuqaalkan si uu u gaaro asxaab badan. waad ku mahadsan tahay daawashada filimkan qaybtiisa labaad. waxay noo ballanaa qaybta saddexaad. tan ilaa ma aan ku kulmi doono qaybta saddexaad ee muuqaalkan iyo sheekada khiyaano dumar. waa bahda sheekada khiyaano dumar oo idin leh isma dhaafno. isbitaalka Soomaali Specialist Hospital wuxuu fulinayaa qaliimo lacag la'aan ah oo kala ah qaliimada haweenka sida toosinta minka, burada minka, burobiyoodka. waxaa kale oo uu fulinayaa qaliimada guud sida qaliinka xameetida, baabasiirka, eernada. dhammaan qaliimadaas waxaa lagu fulin doonaa hab leesar ah iyada oo la jeexin jirkaaga. wixii faahfaahin intaas dheeriya kala xiriir eberli hal 7 69 99 29.